بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين علي الشرحيري وآد آلا بهالكان كلا سعطان برتينان الشرحيري وحان ربا مانتا بل إنان إذا الحسوسية سومالا نكون سيال بقول إليحدنكي وحا أي أهايد يوحا لنغا إيمانكو ويدنا وجمهوريدي إسكيدي اسكو مقعودي 1960 waxaa ka soo wareegatay 61 sano. 61 sano Soomaaliland waxay ahayd dawlad ixtiraaf iyo heer dawladeed ama caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay. waa 61 sano xilligii ay midowgii fashilmay ee dawladii Soomaaliya ay burburtay ay ka gooni istaageen oo maanta heerka ay marayaan in ay samaystaan ay ku fikireen waxaa laga joogaa 30 sano. 30 sano ee iyaga ay nabadgelyada iyo amniga maanta ay haystaan oo Afrika oo dawlado kamid ah aan laga helaynin. innagana waxaan ku jirnaa qarax iyo dhibaato iyo maalin walba in shacab Soomaaliyeed ay ku baaba'aan wadankeena. daraatii ugu dambeysay waxaad aragtay ka dhacay Muqdisho. maalin walba iyo xilli walba dad baa xaq darro lagu dilaa, dad baa xaq darro lagu dulmiyaa, sharci darro iyo dawlad la'aan ay halkaa ku haysataa oo wadankeena maanta waxaa aragteen 30 sane Soomaali qasaare iyo jab iyo dhibaato mooyaane wax kale aysan ku soo jirin. ayagana sidaa aragtay ayay marayaan oo weliba aan taaganahay oon leenahay jamhuuriyadda iskeeda isku magacaawday. waa 30 sano ma ahan waqti yar. 30 sane ayay haystaan nabadgelyada aragtay iyo xasiloonida aragtay maanta heerka aragtay ay ka marayaan dawladnimo markii la yiraahdo oo Afrika oo maanta wadamo kamid ah aan laga haysan. taa inaan Soomaalidu waa dad fiican balse siyaasiyiintooda ayaa bushka ah maskaxda. siyaasi walba oo Soomaali ah maanta dhibaatada Soomaali haysata waa siyaasiyiinta. وشعبه وانت هناك جعلوا وانت دنينيسا ولا لها ظلم كارتي دباتا عرفت لو هايو انت كدلقنيسا سو استاغ او كهدلا oo runta sheega oo xaqiiqda ka hadla sida aan xaqiiqda aga hadlay xaqiiqda ka hadla. qof social media taagan oo dhahayo jamhuuriyadda iskeeda isku magacaawday waa dulan lagu hayo walaalaha naga hil iyo hoo iyaga ayaan ka helinaa anaga. Soomaali waa Soomaali isku jinsiyad baan nahay. wadamada way isku darsan wayna kala go'an. Ethiopia Eritrea waad aragteen way isku jireen waagi hore waxay ahaayeen hal wadan way kala go'een. iyaga kala go'ay dagaalka aragtay uu waliba dhaxmaray dhibaatada aragtay ay soo qabsatay ayaa waliba adana ay hadda ay intii heshiiyeen ay hadda sida aragtay isku caawinayaan ay isku garab taagayeen. heshiiskooda hadda dhow ahay haddana maanta heelka aragtay isku hayaan. taa ka badan ayayna ka helaynaa dadkan walaalaha naga ah. dhibaatada dulanka iyo waxa aan ku hayno ee aan leenahay iskeeda iyada isku magacaawday waa xaasidnimo. iskeeda iyada isku magacaawday in leenahay iskeeda isku magacaabin. 61 sano ka hor ilaahay dulmiga ma ogola. ilaahay cid kasta ee la dulmiya maalin bay madaxa la baxaan. cid dulmisane ayaga dhulka gala. dhul galitaankiya noo dhiman. Soomaaliyay in isbar qabano waraaga aad la jeceshiin walaalihiina baraha bulshada social media banaanka la imaada xaqiiqda inuu ka hadla. haddii shacab oo dhan xaqiiqda uu ka hadla siyaasi ku jira fila Somaliland waxba aga maxirnaanay iyo rakaato walba xaasinimo uu sameeyo isaga kaligiisa ku ahaani markii dambana iyaga is ceebsanaya. taa iyada ah waxaan leeyahay mar walba in yar oo xasuusin oo inta kamid ah maanta waxyaabaha iyaga ay wadanka war 61 sano ma aha waqti yar. 61 sano ay waxay ahaayeen 61 sano ka hor bay waxay ahaayeen dad adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay. in abuurano dadkan
walaalahanaga in calfana populationka aragtay waa wadan dhan maanta amniga ay haystaan wallaahi Afrika wadamo kamid ah lagama helo in calfano on calmana dadka walaalahanaga ah waxaan leeyahay cid kasta oo clipkayga uu soo gaaro ee Soomaalinimo in u istaagno in ka hadalna xaqiiqda waxa ay tahay meel walbo clipkan aad ku aragtaan gaarsiiya dhibaatadana haysata inay siyaasiyiinta yihiin oo waxa ay nagu shubaan in qaadanin oo aan ka soo horjeedno meel kasto cid kasto clipkan aragta share ku qabta aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatadana haysata Allah inaga saaro qaraxa iyo balaayadana haysato 30 sano ay dhibaatadaasna haysataa 30 sano ay iyaga maanta xasiloonida ay haystaan ay maanta iyaga nabadgelyada haystaan anaga wakaasa daraatu ugu dambeysay waxa aragtaa Muqdisho ka dhacay waxa saana haystay ee ka sii hor iyo waliba kuwa kale oo soo socda Allah naga badbaadiyo ummadeena Allah noo badbaadiyo ayagana dolankii dhibaatada aynu ku hayno in ka deeyno aad baan idin salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum.